waa wax iska caadi ah inaan maqalno nin iyo xaaskiisu buu khilaaf dhex taagan yahay amaba naagtii ayaa waxyeelo gaarsiisay ninkeeda balse sheekada aan maanta barnaamijka idinkugu hayo waa sheeko la yaab iyo fajac leh intaan hore u gelin barnaamijka saaxiibayaal ha hilmaamina inaad channelkan hanku biciyo subscribe saartaan sidoo kale aad gambaleelka u furataan si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya markii aan barnaamij soo gelino haddii aan hore u galo barnaamijka sheekadan oo dhacday 2009 kana dhacday USA ama dalka Mareykanka ayaa waxay khusaysaa lamaane isqabe oo la kala yiraahdo Diana DeBluto iyo ninkeeda Mike maalin maalmaha kamid ah ayaa nin lagu magacaabo Maxamed wuxuu yimid saldhigga booliska ee Palm Beach Police Station wuxuuna yiri waxaan garanayaa naag doonaysa inay kireysato nin dabley ah sifo uu ugu dilo ninkeeda hadda waa sifo uu ugu dilo ninkeeda booliska ayaa Maxamed waxay ka duubeen cod uga hadlay arrintaas oo ku sheegayo inuu doonayo kaliya inuu badbaadiyo ninka noloshiisa Maxamed wuxuu leeyahay waxay i weydiisay qof ninkeeda u dilo booliska weydiiyay ninka ma u cabsanaysaa ha maxaa yeelay waxay ka wadaa dhimasho run ah Maxamed ayaa sidoo kale tilmaamay naagta oo aan magaceeda hore idinkugu sheegay inuu ahaa Diana DeBluto booliska ayaa sheegaya inaysan dhaqso aaminin hadalka Maxamed balse ay tixgelin siin doonaan arrintan uu ka hadlayo waxay Maxamed ka dhigeen wax loo yaqaan confidential informant oo ah qof arrin sir ah soo gudbiyay oo u baahan in la qariyo waxa Maxamed loo diyaariyay inuu naagtan la kulmo oo uu kula kulmo xarun shidaal ah si arrintan wax badan looga ogaado naagtii halista badneed way timid booliska ayaa sheegaya in marka hore ay aamini waayeen sababtoo ah naagtan ayaa ahayd mid aad u qurux badan qurux meel iska dhige hadda waxa la gaaray waqtigii la ogaan lahaa kalarka saxda ee naagtan waxay gashay gaarigii Maxamed oo ay booliska kamera ku qariyeen muuqaalkooda si fiican looma arko balse codkooda si fiican ayaad uga dhirgi kartaa Maxamed ayaa u sheegaya naagtan in ninka uu ku xariirin doono uu yahay dilaa heer caalami ah ama professional hitman wuxuu kaloo weydiiyay in ninka hooyadiis ay ka shakin doonto iyo in kale waxay ugu jawaabtay iska daa shakiya cid far igu soo fiiqi karta xitaa ma lahan His mom is not going to be suspicious of you or anything like Why that. me? Like, do you know what telling somebody nobody's going to be able to point a finger at me. ninkan wariyaha wuxuu leeyahay naagtan waxay u hadlaysaa sida ayadoo qada dalbanaysa yacni wax cabsiya ama gariir amaba ku jiro arrinta maba uu akaba in dil la qorsheynayo balse waxay u egtahay in qada la dalbanayo oo kale Maxamed ayaa sidoo kale u sheegay in dilaagu uu u baahan yahay lacag gaaraysa $1,200 Mareykanka ah si uu qori ugu gato naagtan waxayba ahayd mid diyaarsan waxay boorsadeeda ka soo bixisay lacagtii iyo waliba sawirka ninkeeda Mike laba maalin kadib hadalkii wuxuu isku bedelay ficil DeBluto ayaa la kulantay William G oo ah askari balse iyadu ay u haysato ninkii u dili lahaa ninkeeda Mike waa kan wada sheekaysigii dhex maray labadooda William G oo hadalka bilaabay wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan sameyn doono yacni inaan ninkaada dili doono oo ku dili doono ii sheeg yacni sidaad rabto in lagugu dilo camal wuxuu kaloo leeyahay haddii yacni uu shaqo ku maqnayn uu guriga joogo waan imaanayaa guriga u imaanayaa laba xaba madaxa ku dhufanaya yacni khalaas halkaas uu ku dhamaadaba ninka dhanba sheekadiisa dhanba William G oo raba inuu arrinta si fiican banaanka u soo dhigo oo wax walba uu cadeeyo sidoo kalena dambiga uu ku fogeeyaa naagta oo cadaatay inay ninkeeda dili rabto ayaa wuxuu leeyahay ii sheeg yacni ma hubtaa inaad ninkaada in lagu dilo aad rabtid yacni hadhow haddii arrinta ay dhacdo waxba lagama qaban karo ninka haddii la dilo waxba dib dambe looma soo celin karo yacni ma hubtaa in ninkaada in lagu dilo inaad 100% ma rabtaa uu leeyahay ma hubtaa marka arrinta jawaabta ayaa ah mid aad iyo aad la yaab u leh oo yacni dadka dhan ka fajicisay waxay leedahay iska dhaaf 100% aan hube 5,000 oo mar yacni 5,000% sure ay leedahay 5,000 5,000 aan huba ay taagan tahay now and when it's done, you know, you're not going to have an option to change your mind. Even if you change your mind. No, there's no, like, I'm determined Definitely already. you wanna I'm do positive, like, 5,000% sure. waxay kaloo leedahay sidaan u muuqdo yacni ma ihi quruxley waxaas ma yeelaa howlahaas waa ka bedelan yacni naag waxaan ahay aad u adag oo waxay rabto hore ka sameeynaysa taaganta
lot tougher than what I look. I know you see me and you're like, oh, what a cute little girl, whatever. You know, but Yeah, I'm not. that I'm you not. are. You're extremely beautiful. hagaag hadda waa lagu heshiiyey in ninkan la dilo heshiiskaas uu dhacay waxaa la rabaa in laga wada hadlo qaabkii loo dili lahaa askariga William G wuxuu leeyahay subaxda arbacada ah 12:00 yaan ani waqtigeyga isku soo aadinaya adiga jimka aad oo ka sii bax guriga ninka kaligiisa guriga jiifa uu imaanaya yani markaas yaan dhameystiraya adigana inta jimka ku maqan tahay sidaas lagu heshiiyey I'll be in the house by 6:30 Wednesday morning. 6 o'clock. heshiiskaas markuu dhacay oo naagta iyo askariga ay ku heshiiyeen in ninkeeda loo dilo askarta wax walba oo cadaatay in naagtan waxaan aysan kaftan iyo waxaas ka ahayn oo xaqiiqo tahay inay rabto in ninkeeda loo dilo marka waxay go'aansadeen in ay barnaamij khiyaali ah duubaan oo ay ka soo qaadaan yani TV-yada dhinaal iskugu yeeray in laga soo qaado in ninka la dilaybo oo arinta caadi in la dilay laga soo qaado askariga waa sax oo askari ninkii naagta la heshiisay laakiin ayada ma oga marka waxay sameeyeen waqtigii la rabay ninka in la dilo ayay TV-yada waxa dhan yani waa loo yeeray waxa la iska dhigay in meesha wax ka dhaceen oo dambi uu ka dhacay nin la dilay oo kale camal booliska ayaa aroor hore u yimid Mike oo gurigiisa iska jiifa oo waxba ka warhaynin oo ay soo kiciyeen waxay dhahan soo kac Mike waxaan rabnaa inaan kuu sheegno in naagtaada Dayla Dipolito ay rabto inay ku disho Mike uu naxay waxa la dhahay isdaji waxba walwalin waa la soo kaxeeyay qol kale lagu qariyay marka waa la qariyay sifa naagta yani aysan u arkin markii arintii dhacday naagtii la waca marka waxa la dhahay xageed ku maqan tahay waxay dhahday waan ka maqanay meeshayda gurigeyga waan ka maqanay fadlan waxa la dhahay shil baa dhacay gurigaada ku soo laabo way soo laabatay waa loo sheegay waxa la dhahay waan ka xumnahay ninkaadi wuu dhintay haye aan si fiican u daawano markii ninkeeda loo sheegay geeridiisa sidee uga falcelisay qaabka ay u dhaqatay bal aan fiirino in aan bal ka ogaan karno inay tahay dilaaga saxda ah oo ay rabto inay ninkeeda dishay in kale askariga wuxuu leeyahay way oysay oo way barooratay balse wax ilin ah oo ka imaaday haba yaraatay ma jirto oohin aamusin iyo isbihinbihis kadib waxaa la gaaray waqtigii ay askarta waraysan lahaayeen Dayla Dipolito askariga ayaa qolka soo galiyay wuxuuna weydiiyey su'aasha ah ma hubtaa in aadan aqoonin qofka ninkaada dilay su'aashaas la weydiiyey waxay tiri ma garanayo waxa kale hadana la weydiiyay adiga maadan dili rabin soo ma ahan waxay tiri ha ka yaabin askarigii dulqaadka ayaa ka dhamaaday wuxuu leeyahay aniga adiga game dambe oo naga dhaxay ma jiro ciyaarta aan iska deyno shaqada aan toos u galno haye soo gal uu leeyahay waxa la soo galiyay askarigii ay kula heshiisay inuu ninkeeda dilo waxa la weydiiyay ninkan ma garanaysaa waxay tiri maya haye ma garanaysaa yani weliga maadan arkin miya markaasuu dhahay ma xiraada weligay ma arkin waxa la weydiiyay hadana weliga maadan arkin miya waxay tiri maya weligay ma arkin Are you sure that you don't know anybody who want to kill your husband? You wouldn't want to kill him, I hope. Not at all. There's no more games with you and I. Now we're going to get down to serious business. I want to know if you know this guy. Come here. Get over here. You know who this guy is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. boom la yaab badana Oh my god! He's alive. reer aakhiraad kugu soo baxmiya waxaa la soo geliyay Mike oo ah ninkeedii laguna sheegay inuu dhintay waxay leedahay Allah Mike oo ma nooshahay waxaa loo sheegay inuu nool yahay waxay leedahay Mike oo kaalay please imo yaa ule saaqas yaa la gelina may naag idil rabtay agteeda ma imaan kari almiino inay isku qeeqal xisaab ka cabsanaabo Come here, please, come here. Why not? I didn't do anything to you. Mike, come here, please. askarigii ayaa wuxuu u sheegay waad xiran tahay maadaama aad rabtay inaad ninkaada disho wuxuu leeyahay xabsi ayaad galaysaa You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. saaxiibayaal intaas ayay inoo ogtahay barnaamijkeeni maanta intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo